سؤال كلا ربع إن قلبه إنجنير سحنا أيه ويدين دونا هدول الله إن شاء الله إنجنير سحنا وكم جاي معلمين تكلية علوم الكمبيوتر كجامعة مقدسة وكلا وأرضي جدا بيسي كسر أفلحي جامعة جبان وحبنا كنت بينها هدول الله سيديكو أوجان كرنا فرصتها فكرتها كان عسى إجرا يسيد وكلا محيطها الأبورة عصرية المنان تلا إن السيو سنة وقت هذا الجو هدول الله إن شاء الله هذا ما سنته. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثناء الله بنا استنى دون بعد. إنجنير ما سنت سيدو كلنا وحاربا إنان كوني كوجر عن هذا النقو تيم كجيه معمول يولي بأرضي. أنت عن سؤال شو قد بين سيدو كلا دتك بانا كي يقول جرا وحاربا إنا يرادو ما سندين سؤال شمركة وعرض سكرتي كلا إن حوجا نقطين وتطابطو ما دام وحى على الله يهين ضد مستقبل كي أرضي نمو دكرية كوبات جامعة كسي أفلحايو إن عن نقطين تطابطو سيدو إنجنير كشاجي وحان كم إذا هذا كيف صدق أهل ودك اليابان إن يتجان وحكسوا برتان فلله الحمد والمنة أودي يكرتدي دكم التجين مركا وحروا مركا إنان حل أبورك وحن صوبرتي ديبارتمنت اللي هذا MOT أو innovation أو جبان أي بلابين لابد يكون يشنت يعني ودريني كرتا دورة الجبان أو دورة هرمرتية سكتر عم ديبارتمنت لابد يكون يشنتي أي بلابين إنه analyze قسم يسوع أي تحليل يسوع أي يعني جلس ريسيرش قسم يسنا وحي بالله كون سجال بقول سجال شريعة أفرتي بالله يعني لما شيء جاي innovation لما شيء جاي لكن واقعته MOT يعني زمان يسا وحي زمان يسا وحي سكو كين يساعد مالك كردوان كإمالي سكتر كردوان كإمالي إنه هل بنسكو كينش سيدا فرصة هذا حد يجي توكل ماشان وعرف مركا أنت أنا قيمته رؤوسي جري حال أبورك لا شيء أنا سبب ربنا قلت مركب يعني innovation مكان نقطة إنه وحلا على أبورة ولا سويت كلام نقطة محاكة هرّي وعرف أنا نود جريستان هذا أودي كرتان وحاجة ده وحلا يرادو اختراع invention إن لا سمين عرضي ده سنة كأودم بيسي practice مكان سمين يعني وحي سمين وحبي اختراعات وحي اختراعات ما أهن هالأور معه وحواي وحي اختراعين بس هالأور وحو نقون كرا وحي الاختراعي مركي لغاديو لغنعسيايو it means plus commercialization مكي لغو سمي invention plus commercialization أو وحو نقون كرا هالأور ميرتاغون نقون كرا معاك ولا مرك وحاك ولا وحبا اختراعي سوقي مالكي wixii uu kugu aqdimanaya fikirkii yani aragtidii way kugu aqdimanaysaa tusaale marka waxaan u soo qaadanayaa hal shay guluubka waa naqaanaa nalalka guluubyada waa naqaanaa guluubka markii la soo saarayay waa la ikhtiraacay markii la ikhtiraacay ma noqonin innovation ma noqonin hal abuur muusan noqonin markii laakiin millions of customers ay gateen suuqi uu ku baahay markaasa waxaa la yiri shaygi wuxuu noqday shay la soo hal abuuray oo yani criteria hal abuurka galay uu noqday laakiin markii hore wuxuu ahaa shay la ikhtiraacay oo meel yaalo ah hal abuurka markii hal abuurka dadka culimada hal abuurka waxay leeyihiin waa qofka inuu la yimaado wax cusub inuu la yimaado bal waxay ku sii darayaan wax cusub oo kali ama ahane xitaa wax hore u jiray inuu wax ku sii daro waxaasi ama ha weynaado ama ha yaraado halkaas buu uga tagayaa maya ugama tagayo wixii wuxuu ku sameynayaa value qiimo u yeelaya hadduusan wixii qiimo u yeelin wixii uu abuuray ama yaraa ama weynaa ma noqonayo wax ummadii soo jiita ma noqonayo
waxaa su-aal kaloo la isweydiiyey marka hadda yani banalka waxaa ku jiro dad different sectors ka socda halkaana waxaa fadhiyo dad ayagana sidoo kaleeto meelo kala duwan ka socda ardayda khaasatan departments kala duwan iyo facultiyo kala duwan ay ka socdaan hal abuurka marka dad ma u xiran yahay su-aal ay imaanayso ma dad gooni tusaale oo kaleeto xaqiiqada markii laga fikiro annaga yani dadka IT-ga ka baxa inta badan ayagaa isticsiiyaan markii innovation lago qofka IT-ga ka baxa wuxuu leeyahay xoogaa dhinacaasuu gelinaya laakiin sida saxda cilmiga innovationka ama hal abuurka sector gooniya ma laha sector gooniya ma laha product goonina ma laha service goonina ma laha technology bes uma xirna product bes in lasoo saarana uma xirna service bes in lasoo saarana uma xirna intee looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay suuqaa looga baahan yahay suuqa waa lagu wada jiraa marka يعني market innovation ajiro suuqi kale madaxda premier bank la joogto financial innovation oo leeyahay ya lacagtii meelihii ay taashay waxay u baahan tahay in hal abuur lagu dhex sameeyo haddii kale every noqonay meeshaas way ku baahan yihiin waa gelaysaa waxaa kaloo jiro organizational innovation hay'adihii shirkadihii waxay rabtaan ha noqdaan ama ha weynaadaan ama ha yaraadaan waxay u baahan yihiin dad innovators hal abuur u baahan yihiin ayadaasna waa in la galo oo meeshaasna la aado waxaan ku soo koobayaa anoo waqtiga beeqaaminaya yani xirfad noocee lagaaga baahan yahay markaa fiiris yani haddaan maanta oo dhan waan tirinaynaa aan nidhaano ama waa baxsinaynaa oo waa risiis garaynaynaa aan nidhaano ma soo koobi karnaa riyada laakiin yani 7 qodob oo aad ila fahmi kartaan maadaama dadka meesha fadhiya dad educators ay yihiin oo ay yihiin aan ku soo koobaya waxaa lagaaga baahan yahay qof walbo raba inuu hal abuuran noqdo tusaale fiiri hadda meeshaan dadka joogo oo dhan labay u qaybsamayaan khaasatan ardayda aan maanta rabnay inaan la hadlo waxay noqonayaan mustaqbalka dad job seekers ah ama dad job creators ah oo wax abuurtaan wax inay samaystaan rabaan maskaxdooda ay ka guuxayso markaad fiirisid job seekerka markaad aadid job seekerka marka qaarkood waa wado uu qofka ku gaarayo inuu wax abuurta ku gaarayo marka aad rabtid inaad wax abuuratidna ma aha your own business abuuranayo ma ahana meelo badan oo wax laga abuurtaa jirto meel wax lagu darsadaa jirto meel xooggaada lagu darsadaa jirto meel caqligaada lagu darsadaa jirto hal abuurkay ka mid tahay marka waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah qofka inuu leeyahay creativity maxaa waaye waa awood qofka uu ku curinaayo fikiro waxtar u leh xalinayana problems jira inuu qofkii keeno waxaa kaloo ka mid ah qofka inuu noqdo critical thinking inuu yani sida dadka ay u fikirayaan caadiyan u fikirayaan inuusan u fikirin waxaa qodobka labaad ah qofka inuu la yimaado wax la yidhaahdo communication xiriirkiisu waa inuu fiican yahay communication waxaa ka wada external communication internal communication aan jira yacni haddaadan communicationkaada uusan fiicnayn oo aadan dad la communicate garayn karin oo aadan dad wax u sheegi karin oo aadan dad fikirkaada kala dhicin karin yacni ideadaada way kugu adgumanaysaa qodobka ku xigaa wuxuu yahay inuu qofka sameeyo wax la yidhahdo collaboration dad la shaqeey inuu samaysto dadka kula shaqaynayo ma aha yacni shaqadii caadiga kama wado laakiin waxyaabahan aad ugu jiro dadaa inta isla fadhiisataan aad isla dhinaandhilisaan meelo aad keeni kartaan wixii waa inaad leedahay qodobka ugu muhiimsan ee aan raba ardayda maanta halkan joogto inay weligood ogaadaan waxaa waaye learning weliba continuous learning qofka inuu diyaar u yahay in aad waxbarasho ku jirtid meeshaan doctor shariif aan la joogo yacni waxbarashada inaad kusii dhex jirto qodobka lixaad waxaa waaye leadership يعني leadership وسامين يعني إن قفك influencer ونقطة هذا إن عرفت هالأمور أن نقطة هذا اللهين حرفت leadership لما هذا اللهين حوجا critical ويقول بي وحي نبغى ذكرت مجين كرت قلبك وقدم بيو وحالي هذا في الفرعوني قفك ولا يماله يعني أجيله يعني قفك إن قف فرعون كموضة وبودي كرا على كموضة أو حلا جوضة يعني وحي كوجرو قف سيمبل يعني ذك وقدر بعين كرو جين كرو ذك فهسين كرو يعني وحاس له إيمان كرو إن أنا كنت
waxaasoo dhan markaa fiirisid laba fursadoodaa jirayso maalinkaa jaamacadda soo gelaysay hal fursadaa jirta oo qofka qaarkoodna hadduu haleelayna okay noqotay hadduusan haleelina maxay ahayd tusaale maalinkaa jaamacadda soo gelaysa haddaad dhihi lahayd dugsiga saraa ka bixaysay last year-aa ahayd haddaad dhihi lahayd niyow faculty aan barto ii sheeg inta kuu imaado ama ii imaad ay idhahdeen faculty aan barto ii sheeg oo aan ku idhahdo niyow aniga waxaan ka soo baxay computer science go halkaas tag maya waxaan ka soo baxay department dhaqaalahan ka soo baxay dhaqaalihii aan ileen ayadaan aqaanaa mogtahay aan ku idhahdo dhaqaalihii aad waxba kuuma soo kordhin muhiimadda waxay ahayd qofka in asaga naftirkiisa assignment loo diro la fiiriyo maxaad ku fiican tahay yacni course yacni subjectska aad soo qaadatay subjectkee ugu jeclayd yacni qofkii in asaga marka mentally inta loo diro asaga uu fikiro asaga uu soo qaato daas meeshiyaa maanta taaganahay haddaa idhahdid hal abuurka ugu fiican ii sheeg haddaa idhahdid ma kuu sheegi karo laakiin waxaa kuu sheegi karaa meelihii ugu macquulsanaa inta ka bax meeshaas meelaha hadda soo sheegay haddaad xirfadahaas leedahay yacni waxna aad ka fahamsan tahay hal abuurka aad ka fahamsan tahay sheekh waa socon kartaa meeshaas wadday kuu tahay hore usoo socon kartaa waa mahadsantiin shukran